iyo gurigii hooyaday iyo gurigii eedaday la galay wixii looga lagu sameeyay waxaan madaxweynaha leeyahay madaxweyne sida ay xukuumaddaadu sheegtay waxaan u baahanahay dilka qorshaysan ee la sheegay cidii qorshaysay iyo cidii dilka fulisay labadaba waan u baahanahay ifkana meelun baynu wada joogi aakhirana meelun baynu wada joogi xarigaasi wuxuu haaba waa la arkay inuu xaq darro ahaa waa la arkay iyo taliyihii jeelka weyn ee gobolka Saaxil degmadiisa waxaan maanta ka yara hadlayaa xaalado taagnaa dhowrkii cisho u dambeeyay iyo xarigaygii ugu horeyn waxaan tacsiyadeynayaa labadii marxuun ee lagu dilay bartamaha magaalada Hargeysa oo aan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto dhammaanteena samriye iimaan Ilaahay ha naga siiyo tacsi kadib waxaan sidoo kale xaal iyo raali gelin siinayaa walaaladayo Sacad Muuse waan leeyahay walaalayaal waxaynu nahay ul iyo diir hilbo wada dhashaynu nahay ifkana meelun baynu wada joogi aakhirana meelun baynu wada joogi walaalayaal arrinkaa dhacay ee nimankaa aan fariidada ahayn ee aanay cili kula soconay ay ku hadleen xaalkii la idiga siiyey shanlaabkeed baan idiga siinayaa maadaama arrinkaasi aniga ku yimi walaalayaal niman aan fariida ahayn ayay ahaayeen raggii waxaa ku hadlay nimanka iyagoo maanta meedinoo yaallo walaalkii wixii la arkayay kula hadlayay weliba wax caqligooda ka yimi aanay ahayn walaalayaal ka raali ahaada arrinkaa raaligelin kadib waxaan ka hadlayaa xadhigaygii waa laga hadlay reer Soomaaliland oo dhan baa ka hadlay si gaar ah waxa uga hadlay beesha aan ahay beesha Sumeerawa xadhigaasi wuxuu haaba waa la arkay inuu xaq darro ahaa waa la arkay wixii dhacayay ee xadhigayga kadib dhacayna waa la arkay heeray gaadhay ilaa in guryahayagii iyo gurigii hooyaday iyo gurigii eedaday la galay wixii looga lagu sameeyay xariga xaalado badan baa ku gadaaminaa dubna waan u dhiganayaa se maanta waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan reer Soomaaliland gaar ahaan beeshayda si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamadii kala duwanaa ee xarigaygu soo maray taliyihii saldhiga dhexe ee Berbera iyo taliyihii jeelka weyn ee gobolka Saaxil degmadiisa Berbera taliye aad u qiimo badan aad baan ugu hambaliyeynayaa una mahad celinayaa ciidamaduna way ka madax banaayeen siyaasadda jirta iyo wax dhacaya waayo iyagu waa astaan qaran waana tiirkii qaranka intaa kadib waxaan leeyahay xukuumadda meyd baa inoo yaalla xukuumaddu waxay tidhi dil qorshaysan buu ahaa 85% waanu haynaa sida iyaguba sheegeen waxaan madaxweynaha leeyahay madaxweyne sida ay xukuumaddaadu sheegtay waxaan u baahanahay dilka qorshaysan ee la sheegay cidii qorshaysay iyo cidii dilka fulisay labadaba waan u baahanahay walaaladayo Sacad Muuse waxaan leeyahay walaalayaal xaalka Ciise Muuse bixiyay ee madaxweyne ku-xigeenkii ugu weynaa bixiyay sidii ay u gudoonteen sharaf iyo karaamo idiga hayna arrinkaasina saasuu ku dhan yahay maadaama Ciise Muuse madax iyo mijaba xaalka ay bixiyeen ragga aan fariidada ahayn ee arrinkaa yidhina laga wada cadhooday aad ba ugu mahadsantihiin maantana halkaa aan ka hadlayaa waa gurigii looga talinayay Sumeerawa arrinkaasina saasuu ku xidhan yahay walaaladayo waa mahadsanyiin Ciise Muuse sida ay xaalka u bixiyeen iyaduna sidoo kale way mahadsanyiin